waxaan dhihi lahaa Bilal Cusmaan inteena taqaano way taqaanaa gabadhaana nin cunsuri inuu daba dhigtay dadka aan waxaan isleeyahay dadka xataa reer Sweden ah don flesta of us waan naqaanaa gabadhaan waxay u doodo waxay ka doodo atuna activist alta daravivet waan ognahay laakiin maanta aan waxaan ka xumahay oo caloosh iga xanuunto waxa weeye wiilasha Soomaalida inay gabadhan daba dhigtaan ayagoona magaceeda aqoon ayagoon xataa weligeed meel ay ka hadlaysa mise meel wax ka qoraal ay soo dhigtay ayna arag inay ka hadlaan is yaa fatarinta wala yaa fatabarklinta oo sheekadan qabiil in laga dhigo hir wax aad looga wiswiso wallahi oo billahi oo tallaay wax aad looga wiswiso waxyaalaha aniga yani aad maskaxdeed ugu weynaado hadaba walba saado hadaa at least wax sheegaysid wixii sidii aad ku maqashay sidii aad ku sheeg deeda anigu taas weeye wallahi hadalladan la buunbuuninayo xataa informationka iska soo saxa oo dadkan informationka sii gudbinayo hadalka sii faafinaya reer Sweden ma waxaan waa dadka dibadaha kale oo aqoonba gabadhan waxay tahay dadkan aqoon weeyaan oo garanaya laakiin inaad been ka sheegtid inaad dhahdo ninka maanta way la seexatay saanay samays walaalayaalo gabadha facebookeeda gala qoraal bay hadda soo dhigtay idinka nin cunsuri oo jinsiyadaada waxa tahayba nacab diintaada ka soo horjeeda ee gabadhan ku difaacayso aad ka difaacaysa ana u difaac nin cadaan bad daba dhigataan aad u difaacaysaan hilir bilaa dhiig way Soomaalida marka Soomaali dhan ma waa wiilasheena waxa saas wiilasheena waxana dhigay wiilasha ku badan gabadha waxa yoma jimus ku saca deeso sim jimus soo dhaw quruxsaneen dhammaantiin ba wallahi ma anugu codka ugu go'aya jimus internetka gaarka wax badanay sug hadda si fiican may maqashiin hadda sug aan soo dhawaaday okay so wallahi horta aad baan maanta uga xumahay inan activist ah oo bulshadeeda wax badan u taraysa in maanta lagu soo dhago Soomaalina horta intay ku xuntahay waxa weeyaan iyagoo waxba hubsan oon garanayn qofka laga hadlayo waxa ay samaysay waxa ay tartay waxa ay baabiisay iyagoo war u hayn been laga gudbinayo waxa kale ka xumahay ragga Soomaalida ragga qaarkood oo ku hoos gabanaya nacayb nin caddan nacib yahay oo ay leeyihiin hablihii Soomaalida ay rag cadaan naga raacay awgeed inan dhan oo sharaf leh sharafteedu lagu ciyaaro oo reerkeedii haysata sharafteedii lagu ciyaaro just kaliya si ay googarada hablaha ay ugu dhagdhagaan alashaan si loo control dumarka oo sumcadooda loo baabiyo oo leeyahay naag kasto ajnabi guursata waa naag xun I'm very sad marka inantan ma sha Allah dad badan horta reer Sweden way garanayaan waana ku faraxsanahay Salma inaad ka hadashay oo sheegaysid cid ay tahay iyo waxay bulshadeeda u tartay waa inantaa wax baratay walaalayaal wax barta marka waxa la isku dhaafay adduunka waxa weeyaan wax barasho markaad wax baratid xataa sida informationka loo gudbiyo ayaad baranaysaa xataa sida informationka la iskaga baaro intaanad wax si gudbin qalada ayaad xataa baranaysaa marka taas adduunku isku dhaafeen inta inagu dhaamaan dadka kale hore u marin wax weeyaan حتى قلب إنتنا قلب ما يسمين لكن حتى هذي قلب سميان dadku waxay eegaan waxay qofkaas u tartay tolo maxay noo tartay maxay noo samaysay qofkan iyay tahay horta balanbaadno xumaanteeda iyo wanaageeda loo yiri miisaama qofka hatta haddii xumaan sameyn lahayd waxay oran lahaayeen weeyaan wanaag noo samaysa ka badan taageeri miina dadkan caayaya ismcadeeda ku ciyaaraya maanta waa inaan xuquuqdeeda iyo maxay hayto wanaageeda aanu ka hadalnaa aanu korina tan u qaadnaa maya laakiin iyagu maxay sameynayaan just cadow ay u qabaan maxay hayto hablo guursaday rag cad oo sidii sumcadda hablaha loogu ciyaaro awgeed inay inanta sharafta la maanta dhulka geysteen ayaan ka xumahay maanta just because hablaha Soomaalidu rag cad bay guursadaan wa taas baa laga xanaaqsan yahay hadda
ما بأكرنيس أنا بقرنا يا ما أكرنيس أبو بحر الشيء يا ما فهم يسوي لما أنا فهميسو كله تا إذا ما كله كدرنا بيجريها تا إذا تاسو إذا كنت كدرنا ورا البلاد ما إذا لا صعطة أورطة لما إذا لا صعطة وعد ما كله ورما والله أنا قاعد تبرر بس أنا أكسر مايا مدة كلا حتى إذا حتى تسوي أكتر إنت تاس ما قرنا يعني أنا جاية فيديو ده لسه كومنت قريني ولا مودين أنا جاي بيلان تاس كورما 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 علشان أدون كنت شغلك كورما ناك ما يني قريني سوي أكتر هاي أنا حتى اللي سوي عيو اللي مودين أنت هاي علشان information كان إسكاب أنت تسيبها فيني مدة كلا هرتا حمان ونحد ورديسين دتك إنه وحبرتي أنت إنه قرب استاجلهيد أنت إنه قرن لهين أوكي قاعد بعد سمايسة ولا على بركوك نصي وات واحد ودي إنه قد دتك هراء إنه وات سومالي نمد التاجر مسلمة التاجر أنت اللي قرن لها ومقت كل لوسو كعيلها أيه إن أنت دب لوسي مقت هاي دب لو دقي مركا والله وحياس ولا ما كحوم هاي على شيء يجوا بنيسة إن أنت يا مسكين شرفت على شرفتي دي لوك الله قد عيمانتا aad baan uga damqanayaa I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry أني ساي سلوك قرح سنين وندوها قلبي وحي نمت يركو أجي الله بيي أكتر يبيد على ذنك ها قصر عر صادق الله والله ويكو أكتر هاي إنت لأنه إلا ساك والمقلي كودها وأنا أركي حتى شاكدين قبيل لقد جو هبل بدن أمريكان وحكا أي هبل بدن وحبرتي فإلا ساك اللي قصعد كودها لكن ده فرح محد كنت قاني إدوكو رق ما أركتي رق أدونك ما أركتي الله بيكلا ساران waxay kala saaraan waxa u dhaxeeya iyaga iyo dumarkooda laakiin shisheeye markay sheekadu tagto dumarka gadaashay mariyaan horay soo maraan iyagu weyn difaacdaan laakiin inankii faarax ahaa isagu inantii intuu soo qaaday buu inantii dhulka ka taagay hablo badan oo wax bartay oo wax noqday na waa la soo qaatay saaka inantanu kaliya ma hablo badan ba xataa qabiil ahaan loo ijaafiyay cimrigeena inta ka dhimana waligiin dumarka Soomaalidu saasay ahaanayaan sababta ma idin sheegaanu iskuma duubna ayagaan isku duubna waayo qolkii gabadha lagu caayay dumar baa caayayo saarna I know adduunweynuhu isku duubnibu wax ku gaaray adduunweynuhu isku duubnibu wax ku noqday inaga dhibaatadayna haysatay waxa weeyaan dumarka Soomaaliyeed hadaynu nahay inagii baan isku duubnayn hadda inta isku duuban ee TikTok joogta wali jii Muuse ay qalin iyo warqad intaad qaadatay ma xisaabisan 20 dumar ma gaadhaan moogta inta sarraga ka daba naagaysa boqolaal bay kor u dhaafeen marka waa ka xumahay ilama aha aakhirad dad baa ku nool ilama aha in waxa wax laga bedeli karo laakiin inantani horta way qaylinayaan way hadlayaan dadkaniya wax ma ka og tahay maya waxba kama oga waxba uma oga iyaga yaa la isku daalin inantan waxba idiima oga waa daalaysiino waligeenna saasaan ahaa exactly you know waxa ka hadlayo wallahi oo billahi oo tallahi anisay waxaan la soo gelgelinayaba ma ogabo ana waatan asaadaha ay qabato dambe sheegayo ما والله كما ورهيسا سومالي محمد إني هيستان حتى كما ورهيسا إذنكم بدالي لكن أنك كجبنينو أنا جبنينو أنا نقانو أنا جي أمك جبنينو إسحاق حاجة جبنا ليه شابين كوسا كتوه ماشي كيمان صح لكن ديفك جرو حتى يدي aniga waxa ciilkii keenay waxa taa gabadhan u dartay wax u tartay Soomaalida oo meel weyn Soomaalida kaliya aha wallahi uma dooranay wax u tartay oo meel weyn soo gaartay ba magaceedu waxa lagu wasaqeynayaa musuqmaasuq ka jiro TikTok ba ayada magaceedu la soo gelinayaa si loo guuleysto gruubyo badan which is wallahi so disgusting ku socdo hospital